waxaan mar walba anigu ku dhiiranayaa ama aan sheegi doono hadduu aleedmo inaan marnaba shaqadayda ku joojin doonin qof walaalka iyo dulman inaan dhibkiisa soo tabiyo waa lagu xirayaa iyo waa lagu cagjuuleynayaa midnaba inaan u joojin doonin. bismillaahir rahmaanir rahiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. maanta halkan waxaan rabaa inaan arrimo yar oo kooban oo ku saabsan dhacdadii xarigeygii shalayto iyo burburkii loo geystay xarunta warbaahinta Sooyaal ee nagaasimaha ka ahay inaan wax yar ka taabto dad badan aan ka jaahil bixiyo say dhacdadaas u dhacday oo dhacdo fool xun ahayd. haddii horta marka koobaad waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo cid kasta oo ka damqatay oo uu dhibay xarigii iyo dhibkii loo geystay xarunteeda warbaahineed. sidoo kale waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo cid kasta oo ka shaqeysay inaan xorriyadeydii dib u helo maantayna aan dhex fadhiyo xarunteydii. sidaan aan horeyba u sheegay shalayto ama aad warbaahinta Sooyaalba ku aragteen shalay barqanimadii ama galinkii hore shalayto baa waxa la soo xiriiray qayb kamid ah askarta saldhigga booliiska ee degmada Cabudwaaq kuwaas oo sheegay in ilaa 50 askari oo ay kamid yihiin ay mushaarkii laga jartay lambarradoodiina la danaynayo in dadyow kale ama ciidamo kale loo qaybiyo ayagana dad curyaamo ah oo laga dhigay saasna xaquuqdooda ay ku leeyihiin. waxayna iga codsadeen inaan xaquuqdooda si u ilaaliyo aan garab ku siiyo warbixinna ka duubo ay taliyaasha iyo cid walbana ay raali ka tahay arintaasi. waxaan maadaama markay intaas igala hadleen waxaan garowsaday dulmiga ama magaranaysaa qof dulman ama dhiban garab istaagiisa faa'iidada leedahay iyo in qof kasta uu u baahan yahay markuu dhiban yahay in la garab istaago si aan marka walaalahaas dhiban oo xaquuqdoodii iyo xaqoodii ay ka maqan tahay u garab istaago. waxaan markiiba dhaqaaqay ama xarunta ka dhaqaaqay isla barqanimadii 4 saac meelahaas anigoona tagay goobtii saldhigga ahayd oo markaas ay ku sugayeen saraakiisha kala duwan iyo taliyaha iyo cid walba ayagoona halkaas intii askarta kontonka ahayd ay ku soo bandhigayeen cabashadooda ay goobta joogeen cid waa ka xunahay iyo waxoogaa ka daana aysan jirin ay tiri. kabacdi markii aan soo laabtay xarunteedii aan imid waxaan sameeyay barnaamijkii cabashada ahaa ee askarta markii aan sameeyay muddo adigu 8 saac markay tahay ama 2 duhurnimo oo kaleeto waa waxa dhacday anoo barnaamij ku jira qolka stuudiyaha in albaabka weyn la soo gargaraacay. mar koobaad markii la gargaraacay mar labaadkii waxa ay u xigtay albaabka weyn in hal mar gigtiis daaqada la isla soo meel dhigo kaas oo lagu dhuftay gaari cabdibila ah oo horey gadaashiisa tigaal loo soo galiyay asoo dhammaan dhulka la dhigay. waxa ay ku xigtay qolka stuudiyaha aan ku jiro barnaamijka uga jiray in asagana la isku soo jibiyo oo haddii la ku soo ogol yahay albaabkiisa asna dhulka la soo dhigo. markii albaabka soo dhigina horaalay baan u booday war maxaad rabtaan ujeedkiina muxuu yahay ma ana doonaysaan mise warbaahintan inaad badburisaan baad goobaysaan baa adigu hadal ma isdhihin baastri lay bax adigu hadal aad u qalafsan oo qaab daran iyo jeerar baax iyo haddii la ku soo ogol yahay jugo adigu baa jiray. kabacdi xarumihii bay hore u galeen qolalkii qolka warqabadka iyo qolka stuudiyaha waxayna ka aruursan yahay diskiyo iyo moobeelo qayb kamid ah shaqaalo ay lahaayeen markaas shaqada ku jiray. waxaa xigtay in ay anigii igarta duubaan indhaha ay xiraan gaarigiina ay saaraan ayagoona burburkaas kadib markii ay geysteen gaariga markii la saaray meel ay maranayeen meel kale midna ma ogeyn aniga waxa la geeyay meel magaalada ka baxsan oo magaranaysaa baadiye ah meel good hoostiisa baa la fariisiyay. waxay ugu xigtay in haddana labada lugood laga xiro ilaa 8 saac ilaa iyo salaadii maqrib ka bacdi 12 bar ku dhawaad waxaan ku jiray qaabtaas indhaha ay xiran lugaha magaranaysaa iga xiran iyo hanjabaado kala duwan ilaa iyo markaasna wax lagu haysto ma garaneen ilaa kadib aan ogaaday in la igu haysto sidoo tabinka xaquuqda askarta xaqooda ka maqan tahay ama si oo hadli ka dhaa ama aad warkooda ama muuqaalkooda Sooyaal uga baahin ka dhaa. calay kulli xaal adigu salaadii maqrib ka bacdi waxa la soo wareejiyay stationka buuq badan iyo dhib badan ka bacdi stationka markii la keenay askartii halkaas joogtay si wanaagsan ayay ila dhaqmeen qayb kamid ah. halkaas markay marayso adigu saakayto aniga waxaan la hadlay ama dhisanahay taliyii goobta ku sugnaa waxaan u yaan u xiranahay dhibkii la ii geystayna yaa u raacanaya amarkaas bixiyay adigu warar badan iyo hadal badan ka bacdi arintaasi koleyba ma rabo inaan jawaabteedii iyo halkay hadda wax marayaan inaan ka hor dhaco hase yeeshee waa arin maamulka degmada ilaa iyo taliska booliiska gobolka intaba ay lug ku leeyihiin dhibkaasi dhacay.
waxaan rajeynayaa in si dhab ah looga soo jawaabi doono oo uu sharciga uu shaqayn doono in qof saacad walba la iska xiro ama la dulmiyo ama dawlad ku soo ogol yahay asagoo bulsho u adeegaya qof dhiban oo walaalkiisa ah u adeegaya in la dhibaateeyana waa dareemi karaa qof kasta dhibka ay leedahay hase yeeshee waxaan mar walba anigu ku dhiiranayaa ama aan sheegi doono hadduu aleedmo inaan marnaba shaqadayda ku joojin doonin qof walaalkaya dulman inaan dhibkiisa soo tabiyo waa lagu xirayaa iyo waa lagu cagjuuleynayaa midnaba inaan u joojin doonin oo aan tabin doono xaalad kasta iyo si kasta iyo waqti kasta aan ku suganahay qofkii ugu dhici lahaa iyo qofkii ugu jeclaan lahaaba waxaan ugu taaganahay saxaafadda ma ahan inaan xaflad meel ka dhacaysa kaliya tabiyo ama nin meel isku sawiraya inaan tabiyo ma ahan hase yeeshee waxaan u taaganahay ama u shaqaynayaa waa kan dulman ka dhibaataysan inaan tabiyo kan xaqiisa la doodsiiyey inaan sax u soo dhicin lahaa oo si sax ugu heli lahaa inaan ka shaqeeyo dhib iyo dhibaato iyo wax kasta liigu geystana insha Allah waa wadayaa wixii arintaas baaritaanka la sameyn doono insha Allah oo odayaashii dadkii iyo qayb ka mid ah asxaabta ay ku jiraan iyo talisada kala duwan wixii ka soo koray insha Allah inuu socodsiinaya iyo wixii dhibkaan kuleyba ka dambeeyay ama mas'uuliyadda amarkaas in la burburiyo xaruntaas anigana maanta la dhibaateeyo goobta shaqada la dhibaateeyo ka dambeeyay mar raba inaan ka hor dhaco waa idin mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad